bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilahaantiin meel walba aad joogtaan si walba nula xiriirtaan waa saaxiibkii mustaf maxamed cali mustaf dobiyo media ayaa nagala socotaan alaba waxaa nooga barataan inaan niidil istaagno hadba waxyaabaha siyaasadda kan ugu doorkaroon iyo wadciga ka jira dalkeena hooyo islamarkaasina aan falanqayno balse intaan gudagelin hadday macaamiil cusub tahay fadlan calaamada subscribe ka taabo gambaleelka furo si aan macaamiil joogto noqdin haddii aad jeclaystaan laagta taabo asxaabtadan lasii wadaagu sii shargarey qodobada aan idiin helin waxaa ka mid ah dalka digaali ee ku yaala garoonka diyaaradaha maanta waxaa kulan ku yeeshay siyahayaha xilka ra-iisul wasaarenimo master roble iyo sidoo kalena midooda musharaxiinta waxyaabahay ka wada hadleen waa ku daawo doontaan hadduu eebba awood lehno ogolaada qabuuraha muqdisho covid-19 dad uu soo ritay uu dilay oo korortay islamarkaasina wacyiga cudurka safmareynka ee covid-19 dadkeena sidii ay ka yihiin warbixin aan ka diyaarinay ayaa idiin soo gudbin doonaa hadduu eebba awood leh noo ogolaado dobiyo media kala socdo gobolka banaadir oo amar ku soo rogay in dadka ku dhaqan gobolka banaadir ee caasimada muqdisho ay xirtaan weji xirka ama faas maskiga si caabuqa covid-19 19 oo mar kale laba kacleynta uu ka sameeyey safmareynkan oo ku bayinayo bulshada looga hortago warbixin arintaasi la xiriirto ayaa idiin soo gudbi doonaa u diyaargarooba kala dikaali ee magaalada muqdisho kuna yaala garoonka diyaaradaha dancadde ayaa waxaa shir ugu socda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya siihayaha ah iyo sidoo kale midooda musharaxiinta kulankaasi ayaa wuxuu yahay mid daba yaalo 25 bishii februari aan soo macsalaameynay ee ku yeesheen magaalada muqdisho islamarkaasina midooda musharaxiinta iyo xukuumadda siyaasiyiinta ee wadahadalada khilaafka siyaasadeed lagu soo afjarayay waxaana qodobadii lagu soo hadal qaaday ka mid ahaa sidii guddi loogu saari lahaa weerarkii 19 bishii februari lagu qaaday madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore kulanka rooble oo la qaadanayo midooda musharaxiinta waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre oo kulankii hore ka maqnaa iyo sidoo kalena dhammaan xubnaha kale ee midooda musharaxiinta oo sidoo kalena guddoomiyihii hore baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan oo goobjoog qiyaa kii hore ka maqlaa waxaana dadka siyaasadda dharaanariye ku tilmaameen mid uu tilaabo siyahayaha xilka ra-iisul wasaarenimo uu qaaday ee u noqonayso mister roble istoo dhowaan laga soo saari ra warmartiyada hoteelka dikaali kulanka ka socdo warbixin arrintaas la xirtan barnaamijyadeena kale ku daawo doontaan hadduu eebbaha awoodda helno ogolaado mar ka soo baxay gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in la qaadanayo faas maskiga kadib markii safmareen cudurkii covid-19 oo dadkii gobolka banaadir mar labaad kusoo laba kacleeyey kulan maanta muqdisho ay ku yeesheen maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo sidoo kalena qeybaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ayaa waxaa lagu falanqeeyey kulankaasi mid lagu soo saarayo waxyaabaha laga hortagayo cudurka safmareynka ee covid-19 waxaana guddoonka gobolka banaadir cumar finish kulanka oo shir gudoominaya lagu sheegay in laga maarmaan ay tahay in la xirto dadka loo sheego sidii loo qaada lahaa weji xirka faas maskiga islamarkaasina looga hortagi lahaa faafidda iyo weliba dadka uu saameynta ballaaran oo ku yeelanayo cudurka safmareynka ee covid-19 kulanka ayaa waxaa yimid kadib markii maalmihii ugu dambeysay soo ritay dad fara badan cudurka covid-19 qabuuraha magaalada muqdisho markaad tagtid waxaa arkaysaa dad uu soo dishay cudurka covid-19 ee safmareynka hayo dadka dunida waxaana goobaha karantiilka isbitaal martini ee la geenaya maalin walba dad fara badan aydan qabuuraha haddaba su-aasha taagan waxay tahay maxay tahay korarka iyo laba kacleyntaas tirada nambarka la diiwaangelina dadka uu soo ridanayo iyo dadka u dhimanaya maxay tahay faham la-aan ayaa jirto islamarkaasina dadkaysan ku baraarugsanayn khatarta uu leeyahay balse waxaa dadka ay moodaa in ay taasi cudurkani ka aragsan yihiin dadka kale ee dunida maadaama dowladaha ee weliba wacyigelin ay sameyso covid-19 ayaa dunida markuu kasoo baxay inuu cudurkaasi dilaacay ayaa dad badan ay u geeriyoodeen balse baraarug la-aan ayaa maalin walba qabuurayaasha ku yaala magaalada muqdisho iyo gobolada dalka waxaa maalin walba lasii geeyaa dad fara badan ayadoona oxygen la-aan laga soo sheega mararka qaarkood gobaha dadka lagu dabiibo ee lagula tacaalo karantiilo
sidoo kalena barta ay ku kulanta bulshada dadka ku tacsiyanaya dagaalada halka lasoo dhigay koofiyey 19 dadku soo disho ayaa nambar kor u sii badan naqanayso. Haddaba bulshadeena Soomaaliyeed waxaa mar waliba la wanaagsan in ay qaataan talooyinka ka soo baxaya dhakhaatiirta si looga hortago faafista iyo weliba safmareenka cudurka ba'an oo dadka ku hayo magaalada Muqdisho ayaa si caadi ah waxay ka tahay isdhexgalka iyo weliba kala fogaansho la'aanta ayadoona dadka qabana goobaha isbitaalka iminka hortiisa dadkii lagu karantiilay lagu arkaya dad fara badan oo yiraahdaan waa soo booqanayna bukaanadeena.